la idinka aqbali maayo haddaad gardarro og baad siinay aad joojin weyday sahray anigu waxaan ku sheegaynaa inaan sharciga gacanta ku qaadano kaa idinku macmasheen la yaabanahay oo shay lala yaabo ah horta mahdi guuleed aan taariikhdiisa kuu sheego sahray waa ina yaroo xaafid alqur'aana oo ahlu beyta oo jamaaca weyn ku dhashay ma garatay oo mutacalin oo karti leh marka waxa weeyaan sahray in badan baad qabyaalad qaawan ku hadashay dadkuna maaha garanaysaa stupid maaha qof kastaaba wuu idin arkaya marka waxa weeyaan maanta qabyaaladii qaawanid baan anu kugula hadlaya waxa aad mahdi caada qaadda ugu sheegtay ku tiri waa caada qaate kelmaddaasi dee waxa weeyaan ma tagtaye waxaad ku afdhaqan bal mar un ii sheeg qaran baa tiri qaran waa qarankaa la burburinaya qaranka haddii cidi burburinaysa adaa burburinaya waxaad somalilan ku haysana waaba xamare talaabiib iyadoo la tagaa dhaanta hidda dhowr baad la baxday hidda biis weeyaan dhaqanaa somalilan ka caagan baad habeen walba aad ku samaysaa somalilan oo bulshada yar iyo ubaxa soo koraya ay intaasoo dhan ay nolosha ka dhacaan because of you marka waxa weeyaan adigoo marka aad TV soo fadhiisanayso ee aad qabyaalad qaawan ka hadlayso horta waxa nin gurigiisa quraarad yahay ha imxuu haayay dadka tuurtuurin marka hore CV-gaaga la eega marka hore waa la istijaabi CV-gaaga hadduu aad og tahay inaanad sumcadaadu fiicnayn dadka lama aflagaadeeyo mahdi ahlu beyt markaad leedahay mahdi waa caada qaate somalilan waxaan la yaabanahay haddaba somalilan dadka dego oo dhan minbari min galbeed way idin arkayaan waxa tiinana xaalaal ka dhigay xaaraan ka dhigay ta ummadda kalena bal way idin noo sheegi doontaan waad noo sheegi doontaan intaas oo dhan buu cumar carte ka ahaa ra'iisul wasaare ku xigeen BBC-da markuu ka hadlayo waxaad tirahdaan fariidkiiba hadlaye bal suga fariidkiiba hadlaye bal waxa hadda dadka kala dambiilayaal ka dhigay ma maanta markuu ina carte soo waayay xilkii ayaad mahdi caada qaato ku sheegtay waxa aad u ayaan darro ah oo la yaaba sahray adigoo aan ma garanaysaa CV-gaagu fiicnayn inaad mahdi hadal ka sheegto nin baa wuxuu yidhi waa noocaasaa tahay macalhaya haddaanad ahayn laga macaash siiyo maxaa adiga mara kaaga dhigay meel xun iyo ceebta 60 jir baa tahay halkaad ka cibaadaysan layd eed rabbigaa uga toobad keeni layd kama kanaad imika qaraacayso guduuda carwo ayaa ka toobad keentay marka anu waxaan ku leeyahay inta aad bilaadan oo karaamaysan aad wax ka sheegayso horta taada sax adigu is xisaab waxa weeyaan taad wadaana qaran ma aha Soomaaliya qaran kama hadlaysidii oo Soomaaliya kama hadlaysidii gardarro garabog baad waxayna keenay miskiinka shalay tole xamar tagay iska shaqo tagay siyaasad shaqul ku lahayn fanka ay dhaqanka Soomaali oo dhan ka dhaxeeya uu yahay muxuu hayay bila xuduuda dhaqanka Soomaalidu waa bila xuduud ma garatay marka waxa without borders weeyaan meeshu doonu tagi karaa aad imika u soo macmasheen leedihiin wasaaradii waxbu ka shaqeynay qodobada iyo dastuurka waxa u adeegsataan dadka ay u adeegsanaysan waxaan laakiin taariikhda qoraysa maalin walba bilaadanka intii imika wasiiraya fadhiyay maalin walba waa hadli jirteen maanta markuu Muuse qabsadayna qof hadlaya ma lihidin dadku way idin arkayaan xishooda oo ixtiraam samee baan ku leeyahay dadka ka xishooda oo xishood sahray talabaad Abdi Xaashi oo golaha sare fadhiya 7 Soomaaliland 8 Soomaaliland jirto maalin walba waa xaraan Soomaaliland wax jirta ma uu caay maalintuu Muuse qabsadayna waa ka imika muxuu hayay dad u kala dab qaaday Soomaaliland iyo Soomaaliya marka waxa weeyaan tiinana waxa xalaal ka dhigay ta ummadana xaraan ka dhigay la idinka aqbali maayo haddaad gardarro og baad siinay aad joojin weyday sahray anu waxaan ku sheegnaa inaan sharciga gacanta ku qaadano ka idinku macmasheen marka waxaan ku leeyahay oo aan ku sheegaya waa kow ma oo laba ma oo saddex ma intaanu TV ka daawanay ragayga karaamaysan wax ka sheegayso
magaalada Hargeysa kula joognaa marka waxa weeyaan Mahdi maanta marka uu Mahdi ra'iisul wasaare ku xigeen ayaa loo quuri waayay aad leedahay Mahdi sharaf iyo karaamo ku jooga Maxamed Hargeysa markuu joogana sharaf iyo karaamo ku jooga marka waxa weeyaan Mahdi inaad raali gelin ka bixiso ayaa ku haboon hadii kalena dhaqan biis waxa habeen kasto aad tunto macsida meeshaada ka dhacaysa rabbi casaawo jilla uu ku arkaya ummaduna way ku arkayaan waxa weeyaan maalin walbana waxa dadka u baa sida waxa jiimeynaysa aad waxa jiimeynaysa marka waxaan ku leeyahay haddaad xishoon weydo anagu sharcigan gacanta ku qaado dawladdan aad leedihiinna hadday waxba ka qaban weydo inaad dadka saa u aflagaadayso kursiga dambe lagu fadhiyo anagu walaa kursi dambe haba mid hore lagu fadhiyo anagu reer Hargeysa ma garasay marka waxa weeyaan hadii aad joojin weydo aflagaadada waajibkan u leenay baan gudanayna waxaan kale idin sheegayaa qamar Suudaani maydaan soo bandhigin eedaa ku haysataan maydaan soo bandhigin bayroolka uu kaga jiro wasaaradda warfaafinta oo maydaan oran qamar Suudaani lacagtaas uu qaataa mushaharkaas uu qaataayo numberkiisu bayrool numberkiisu waa ka maydaan oranin Umar Arta Qaalibna TV intu soo fadhiistay mu oran xildhibaannimadii aan xamar ka ahaa waan iska casilay bal haddaba waxa tiisana xalaal ka dhigto Hargeysa ku dhex joogo qamar Suudaanina ku jeebayseen war waxa ay wax ka daran baa wadaane amba dalka cadaalad ka dhaliyo cadaaladu siday tahay justice ku sidii yahay u shaqeeya hadii kalena qof walba sharcigu gacanta ku qaadanaya marka inaad haddana noo aflagaada noogu dartaan idinkoo dastuurkan samaysateen sida maxay sheekhi la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan dastuurkii noo aaminka Soomaaliland waa la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan idinkoo dastuurkii Soomaaliland sidaa ka dhigtay oo kolba sida doonaysaan jambiga ka fuuli kartaan ka saaran hadii aad ka saa u gasheen haddana aflagaada aad noogu dartaan waxa weeyaan xayawaan manihin bilaadan baanu nahay waxaanu nahay dad idin arkaya anigu imika markaan TV soo fadhiisanayeen imika hadlayeen Soomaali meebi Maxamed oo dhan kula hadlayo markaan soo hadlayo waa inaan ku hadlo wax bilaadan kuna iga dhageysto oo gar ah ilaahayna iga aqbalo laakiin haddaad la soo fadhiisato wax saa loo dhoobay oo kolba dastuurka dhinac kaga imanaysaa Soomaaliland anaga u soo dhimanay inta anaga Soomaaliland nagaga dhimatay Soomaaliland u batraadaan laan tumba gurtaane laantan inta anaga nagaga dhimatay idinka kaga may dhiman haddaba waxaan idin leenahay dadku bilaadanku xishooda waxbuu xeeriyaa waxbuu eegaa hareerihiisu eegaa hortiisu eegaa mustaqbalka dambe u eegaa waxani waa wax diiwaanka idinku jira marka waxaan idin leenahay wixii la idinka aqbalay la yimaada hadda TV-ga ayda la soo fadhiisataana uma malaynayo anagu idin caayimeen laakiin cid naga taariikh badani inaan Soomaaliland socon wabillahi